وزارة الدروسية هودا وزير حليمة وزير كيني هوري حليمة وزير كيني هوري حليمة قبلها اكتيفيستياشا شابتر كتورنتو قولودا نعيمة يري أو جندركا قبلها أباي حليمة علي بيودا قاسمها والفافينتا iyo ardo wax asli oo ah xildhibaankeena ama ha yeeshee ama ha weyso waa xildhibaankeena gabdhaheena activistiyaasha wax garadka ah oo maanta nala jooga waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan radoonayaa inaan u mahadceliyo chapterka Garowe waxa xanuun nooga maqan ilaahay u yasiro gudoomiyay chapterka Garowe Faaduma Diiriye hase yeeshee waxa wada ku xigeenadeedii oo chapterka ah guddigii oo 7 ka kooban haddaan xoogaa idin faahfaahiyo UN Women ayay ahayd ideyada in chapter laga sameeyo gobolada oo dhan meeshii koowaad ay ku bilaabeenna waxay ahayd Garowe hase yeeshee ballanqaadkii ma hayno meelaha kale lagu faafin lahaa oo UN Women ay sameyn lahayd waxaan u direynaa baaqa hawsha bilowdeen inaan noo dhameysaan taa waa mid waxaan marka aad ugu mahadcelinayaa xafladan quruxda badan oo chapterka Toronto chapterka Garowe ay noo sameeyeen macnaha chapterka laga lahaa waa tan maanta oo kale inay kor u qaadaan wax walba oo haweenka ku saabsan oo ka dhacaya Garowe iyagoo isku xiri doona ururada kala duwan dhalinyarada kala duwan jaamiciinta gabdhaha oo kala duwan iyagoo hadafyo kala gaar ah leh inay isku xiraan oo chapter Garowe uu leeyahay oo isku xiraya ay marka coordination kaas ay sameeyaan hadafkii laga lahaa taas uu ahaa markii ay 9 chapter isu tagaana oo Puntland uu ka kooban yahay mid national laga soo saaro kaana uu noqon lahaa haday hawsha socon lahayd kii xamar nooga qayb gali lahaa dhinaca coordination-ka markii chapterada laga hadlayo iyo magaalooyinka isku xiridooda hase yeeshee meeshaan ka sii wadayna annaga qabsan karna ma sugayno qoladii ballan qaaday waxaan ku boorinayaa chapterka Garowe inay inta isu tagaan annagoo la caawinayna haddaan nahay wasaaradda haweenka aan sii wadno chapterada kaleeto 8 gobol oo kale intii ay sameysneen mana sameysno kulligood inaan sameysano marka isku tashiga inaan sameeyno saa u sameysano waxaan ka booday iga raali ahaato tala wadaag ururka tala wadaag oo halkan joogo iyagana aan salaanta wax ka gaarsiinay taa markii aan ka soo gudubno maanta chapterka gabdhay u yeereen waxaan u maleynayaa qorshaha ugu jirta inay tahay inay odayaasha u yeeri doonaan dhalinyarada inay u yeeri doonaan dad isku dhafan inay u yeeri doonaan sababtoo xuquuqda haweenka oo dhinaca maxaa la yiraahaa doorashooyinka gabdhaha oo kaliya inay iyaga wax isu sheegaan ma aha waa tahay inaan anaga isdiyaarino laakiin waa inaan dibadda uga baxnaa circle-ka oo dadka genderka kale ah inaan tusno baahideena ah inaan u baahannahay qoondadeena marka taana waxaan aaminsanahay inay soo wadaan annagana inaan ku caawino sababtoo ah wax dhaqaale iyaga hadda ay kaligood ku sameynayaan ay heleen ma jiro waa wax iska u qabso ah isku tashi waaye waana fiican tahay annagana waxaan idinku garab taaganahay inaan idinka caawino haddaan wasaaradda haweenka nahay shaqooyinka aad qabanaysaa waxaa jira oo farxad leh shirar kale oo kan lamida oo socda waxaa ka mid ah BDRC Punsa
iyo activist group oo wasaaradana iyadana ay la kaalmaynayso oo wada heshiisyadan waxaan leeyahay shirarkan oo kale oo lagu empower garaynayo dumarka u taagan ama u cararaya in ay ka qayb galaan doorashooyinka soo socda kuwaana waa jiraan waxa farxad leh qolada aan dambaan idin sheegay iyagoo isku dhafan wasaaradda ay hogaaminayso in ay ka heleen gacan buuxda oo ballanqaad leh oo encouragement leh madaxweynaheenna cabdiweli maxamed cali gaas markii aan la kulannay oo na siiyey dhiirigelin weyn sidaan hore ugu socon lahayn ajendooyinkan wadanayna kulligood noo wada ogolaaday taa haddaan ka gudbo maanta waxaa isugu nimid gabdhaha in la dhiirigeliyo si ay uga qayb galaan doorashooyinka socda waxaad ogtihiin doorashooyinkii ka dhacay baarlamaanka hoose ama councilka Garowe in gabdhaha si fiican aysan u soo bixin ay tartankii u gelin inta tartanka gashay waa yareed marka waxaan rabnaa inaan ogaano moor tartankeena yar yahay moor annaga aanan maxaa la yiraahaa soo bixitaankeenana u yaraanayo marka waxaa loo baahan yahay gabdhaha inay iyaga horta aaminaan inaan aaminno haddaan gabdho nahay in aan samayn karno wax kasta oo qof bini'aadana maskaxda uu ka samayn karo physically ama jir ahaan dadka waa kala xoog badan yahay rag iyo dumar laakiin maskaxiyan gabadha inay ka soo bixi karto taan maanta ka hadlayno in ay ka qayb gasho siyaasadda maanta socota ama ha ahaato midda dowlad goboleedka dowladda hoose ama ha ahaato midda baarlamaanka ama ha ahaato midda federaalkaba maxaa loo baahan yahay marka taa intaan la gaarin women empowermentka ama siyaasadda intaan loo gudbin dumar ahaan waxaan u baahannahay inaan horta ka fakarno gabdhaha iyo tacaddiga ku dhacay gabadha markay yar tahay haddii ay soo gaarin teenager ama adolescent aysan hadhow gabar weyn noqon ay dumar noqon ay wax baranin siyaasad ma aadi karayso waxaad ogtihiin 2 asbuuc ka hor 3 gabdhood labana 11 ay jiraan midna 10 jirto inay ku dhinteen meelan Puntland ka tirsaneen laakiin xuduudkeena hase yeeshee daawo loo keenay Puntland gabdhahaas waxay u dhinteen waxay ahayd gudniinkaasoo loogu sameeyey meelo baadiye ah markii dambana markii lala soo cararay dhiig baxay u dhinteen iyo tetanus taas waa ka dhacdaa magaalooyinka aan hadda degannahay waa mid qalbi xanuun leh waxaad is oran kartaan maxaa isaga xiran subjectka maanta laga hadlayo iyo gudniinka maxaa isaga xiran subjectka maanta laga hadlayo iyo tacadiyada waxoo dhan waa isku wada xiran yihiin gabadhii haddii aynan annaga wacyigelinta aynan badin iyo u qareemidii in magaalo iyo miyiba laga daayo gudniinkaas fircooniga ah gudniinkaas sunniga ah gudniin oo dhan laga joojinin si u dhan yahay oo dadka marba ay magacay u yeelanayaan ama fircoonihaada ama sunni ha ahaado gabadha dhaawaca loo geysanayo haddaan zero tolerance aan laga wada joojin gabdha ma helayno wax tartamana ma helayno wax noolaadana ma helayno horta halkaasay arrinta ka soo bilaabanaysaa tacaddiga ku xiga sidoo kale gabadhii markii iyadoo maxay siyaasad ka qayb gashaa haddii annaga aynan aaminin oonan garab ku siinin gabadhaan tacaddiga ku dhacay in aan u advood garayno ama inaan uga qarayno meelaha dacwooyinkeeda ay yaallaan maxkamada ha ahaadaan stationada biliiska ha ahaadaan odayaasha ha ahaadaan ay ku dhammaanayso waa inaan u qaraynaa markaas waxaan heli karnaa dumar xoog badan isku duuban siyaasadda ka qayb geli kara hooyo fiican noqon karta walaal fiican noqon karta maxaa la yiraahaa xaas fiican noqon karta marka tacadiyada ku dhaca
gabdhaha yaryarka ama dumarka iyo u cararistooda siyaasadda waa lineage ama waa wax isku xiran waa hal qof oo loo baahan yahay inuu tallaabooyin hore u qaado uusan hakanin haddaan u soo laabto tan ah haweenka iyo siyaasadda horta adiga haddaadan applicationkii aadan samaysanin codsigii oodan ku xirmanin bulshadii oodan ku xirmanin haddii markaa 4.5 ay tahay beeshaadi aadan xoog saarin aadan lobby badan samaynin aadan shirar badan ka qaybgelin waxaad heli karayso waa yar tahay waxaan ma aha waa rabaa le waa ku riyooday waa rabaa xildhibaanaan noqonaya ma shaqaynayso wax walba waa juhdi in la geliyo wax walba waxaa loo baahan yahay in waqti iyo maxaa la yidhaahaa xoog badan aad geliso ka daba socoto inta badan waxaa dhici karta wixii aad ku noqnoqotood ka daba socoto aad shaqo badan geliso inaad heshid laakiin haddaad ku fakerto hebel oo reerkeenna ah oo nin ah ayaa qaatay anigoo gabar ah maxaan u heli waayey juhdiga geli waxaad soo oran kartaan xataa haddaan dadaalo inaan helinaa laga yaabaa bal allahna gaarsiiyo horta dadaal ma dadaasho horta way aad weysiday wax kasta oo loo dadaalo lama helo laakiin inta badan waxa la dadaalo inta badan waa la helaa laakiin wax kasta 100% ma aha maxaa loo baahan yahay marka ragga markay ay xildhibaan u tartamayaan maxay sameeyaan waxa waa loobiyaan shirar badan ay qabtaan loobiga lagu sheegayo waa waxyaalo badan oo isku jira waa dhaqaalaha ku jira hadalaa ku jiro qancinaa ku jirta is-iibinaa ku jiro inaad is-iibiso waxaa tahay oo tiraahdida aniga waxaas waa qaban karaa waxaa waa ka bixi karaa waxaa waa u samaysnahay in aan aniga haddaan kursiga aan ku fariisto aan ka soo dhalaali karaa markaad qofkii aad iska iibiso beeshii aad iska iibiso dadka aad hor fadhiyo odayaashii aad iska iibiso waxaad dhici karta inaad meel ay soo gaarto meel uu soo gaaro qorshahaada su-aasha ka timi taa waxay tahay marka gabdhihii dhaqaalo ma qabaan siday sheegaysay asli say sheegaysay maxaan annaga ugu samayn weynay fundraising waa loo samayn karaa gabadhii markaas aan aragno inay aad u soo cadcaddahay adduunkaba waa laga sameeyaa maraykanaa laga sameeyaa kanadaa laga sameeyaa yurubaa laga sameeyaa ma jiro qof keligii cararo oo loobi sameeya oo maxaa la yidhaha hadduu multimillioneer ahayn midna waa wax physical ah oo qofkii cararkiisi iyo is-iibintiisi iyo ayay ku xiran tahay iyo shirarkiisi midna waxa waaye midda ah loobiga in la sameeyo meel walbo shir lagu qabanaya kharashay kaaga baahan tahay waa inaad refreshment bixisaa waa inaad casho bixisaa dadkii iskagama soo horjeesan kartid waxaa jira waqti badan ay qaadaysaa dood badan baa dhacaysa sidaan caawa isu horjoogna cabida waxbaan cabeynaa shaahan cabeynaa wax walbaan cabeynaa waa qarash marka gabdhaha waxaa loo baahan yahay inay iskaashadaan gabadhii ay u jeedaan in ayba soo qaaday madaxa ay u qalmi karto oo ay loo malayn karo in ay ka soo bixi karto iyo tii ay serious ka tahay oo cararkaas u serious ka yahay waxaan qabaa walaalayaalow fundraising ha loo sameeyo gacan ha la siiyo shirar ha loo qabto ha loo kaalmeeyo annaga wasaaradda haweenka haddaan nahay diyaaraan nahay anytime ana soo wacdaan waxaan ka qaban karnana waa ka qabanaynaa shaqaalaha iyo aniga iyona diyaaraan nahay meel walba ay noqoto tan ah haweenka iyo sharci ahaan maxay u leeyihiin qoondada taa dee inaan isku soo celcelinno looma baahna waa ognahay qoondada meeshay ka soo bilaabatay waad ogtiin garowe 2 ee ka soo bilaabatay shirar badan baa la qabtay 10 jeeraa la sharciyeeyey duulo badan waa laga gaaray federaalka dhinaca sanadka waa laga gaaray percentage-ka hadda ku jira laakiin annaga waxaan u baahannahay 66 xildhibaan oo Puntland 2 gabdhooda ku jira mid kalena ay isu sheegay 130kii waa kaabkii la qabtay waa meesha ugu sarreysay ka badan haddaan helno waa okay
لكن بالآن حتى هلنا half of that and then 20% and then ما ليه أنت هلو إكاظه 50% هدان هلنا وجعلان لهين لكن dismorally إن نقول إن هدان وحل أنت أن هي سنة إن كهوس دعنانا معها أنت أننا نقون ديسن أو نشر عيسن يكبدنا هدان هلي إنه وباهنا marka qoondadan 30%-ga waa kaab la qabtay waxay ku xiran tahay waxyaalo badan dadaalka qof gabadha saahaday uu soo sheegay inaan ku noqdo ma rabo qancintay dadka qancinayso waxaan aniga aan maanta idin xaqiijinaya dawladda Puntland inay raali ka tahay hortiidaan ka xaqiijinaya ay boqolkiiba 30 ay raali ka tahay gabdhaha haday helayaan gabdhaha empowerment-kooda inay raali ka tahay wax kasta oo ay qabsan karaan dawladda inay raali ka tahay laakiin anaga inagu xiran tahay waxaan kaloo halkan uga soo jeedinayaa odayaasheena dhaqanka oo Puntland ay maanta ku taagan tahay oo salka u ah aan ku dhaaranno oo nolosheena haafka ah waxaan rabaa inaan ka codsado bal inay ku eegaan ishii hore il ka duwan gabdhaheena mutacalimiinta ah gabdhaheena aftahanka ah gabdhaheena traditionalka ah oo u socda ama u cararaya inay ka qayb galaan baarlamaanka bal inay soo dhaweeyaan inay qiimeeyaan inay waqti siiyaan ay ku dhageystaan haddii gabadha ay u qalmato iyo haddii kale inay baarlamaan fariisato inay daafacdo xuquuqda ma aha dumarka oo kaliya xuquuq walba oo baarlamaanka uu ka daafaco ummadiisa hadday gabadha ay u qalanto in ay bal fursadaas ay ku wareystaan ay siiyaan ayaan halkan ka codsanaynaa oogana tabinaynaa ma rabo muddada inaan idinku dheereeyo arrimahan way socon doonaan horena way u soo socdeen ilaa iyo hadda 8 ilaa 9 activistayaal iyo organizationno kala duwan ayaa shaqada tan ku jira waana wax lagu farxo inuu nin walba daaftiisa uu ka qabto waxaan kaloo mar labaad aan rabaa inaan u mahad celiyo Toronto branch waxaan leeyahay Garowe branch inaan u mahad celiyo waxaan kaloo ka codsanayaa chapterka Garowe shirkan shirka ku xiga in uu noqdo isku dhaf iyo dadka targetka ah aan doonayno inaan la hadalno waa mahadsantihiin walaalayaal waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo asli qodax oo cadcad oo u qalanta in ay noo fariisato haddaan nasiib leenahay baarlamaanka Puntland waxyaalo badan ayaa iska bedeli lahaa xuquuqdeena waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay soo baxdo gabadh ugu horeyso soo baxda ay tahay kuwa kalena ay ku soo daba xigaan waana mahadsantihiin waana noo bilow saasaan u wadaynaa shirarka